go-aanka uu qaatay sharcigaas curintiisii xildhibaanna hadda halkaan aan ugu jeedo iyo 57 xildhibaan ah ayaa soo curiyey sharcigaas ayada wuxuuna ka dhashay shirkan shirkii ka horeeyay ee halkaan ay nagu casuumeen xisbiyada Soomaaliyeed ee nabadda jecel kadib markii ayna casuumeen oo inaga codsadeen in la jiheeyo doorasho maadaama ay doorashadii hore ee dadbaneed ay socon waayday muxuu ahaay wasiirkii arrimaha saxaafaddana uu hadlay uu yiri waa fashilme shirki ay shirkaas qabteen xildhibaan ay marti qaadeen codsi ay codsadeen ayay 57 xildhibaan intay isqortay sharci curiyeen kaasaa sabab u ah 149 xildhibaan ayaa haa u codeeyay 3 waa diideen hal xildhibaanna waa ka aamusay sharcigaas sharci uu noqday wuxuu ku saleysnaa qodob dastuuri oo la yiraahdo qodobka 47 oo aan u baahnayn laba xisbi laba baarlamaan aan u baahnayn oo u baahnay kaliya baarlamaanka golaha shacabka qodobka 47 ee qeexay in golaha shacabka ay jiheeyaan sharciga doorashada kaasaan ku saleyn waxaana ku qoraa muddo 2 sano gudahood waa ma aha 2 sano kadib inay doorasho hal qof iyo hal cod ay dhacdo dad baa la booday arintaas ayada waa qareereeyeen waxaa 2 sano lagu dariyay yiraahdeen ku darsiimay la boodboodeen beel caalam iyo adduunyo ay u garaaceen gurbaan wadankii ayay ugu baaqeen in gumaysi la geliyo ilaahay ma dhihin laakiin baarlamaanka Soomaaliyeed go'aankiisa waa go'aan waxba yay cabsi idinku abuurin damdigta yeerayso yay waxba idin cabsi gelin 194 dawladda caalamka ka jirta mase 3 waaye ee caalamka ka jirta wadanan baarlamaan leheen male wadan walbana baarlamaankiisa go'aanka uu u gaaro ayaa kama dambays u ah annagana kaayna kaasoo la mid yahay dalka Mareykanka baarlamaan uu leh sidayno kala laba aqal waay walaalaheena dadka noogu dhow aan dhalanay Djibouti baarlamaan ay leeyihiin Ethiopia baarlamaan ay leedahay Kenya baarlamaan ay leeyihiin annaga waxba kama sheegi karna go'aamada ay gaaraan annagana kaayna waxba kama sheegi karaan waxaa haboon inaan iscisayno qolo walba muxuu ahay gobonnimadeeda lagu tixgeliyo oo muxuu ahay ixtiraam uu naga dhaxeeyo wixii intaas ka badan waxa weeye siday u ficiltimaan ayaan u ficiltimaynaa waxaan rabaa inaan baaq u diro beesha caalamka annaga dawlad xur ahaanahay waa madax bannaanahay awiyaalkaynaan nagu soo simay annagana ubadkaynaan ku simaynaa faragelinta ha naga daayaan hadday faragelinta naga deey waayaan waxaan maqlahay ciidamada amisom ha ilaaliyaan ciidamada Soomaaliya noloshay ku qaban karnaa ciidanka leeyihiin ciidanka ha ilaaliyo noloshaan ku qaban karnaa wallahi billah markaas ay waxay leeyihiin amisom ha ilaalisa ciidamada Soomaaliya waa dad wareersan waa dad aan dawladnimada fahmaynin ha ogaadaan Soomaaliya midowga Afrika kala bar xurriyadeedii aan ka qayb qaadanay ee aabiyaalkayn u dhinteen oo u dhaawacmeen oo hantidayna ay ku baxday inay maanta yiraahdaan wiilka Soomaaliga ee askariga amisom ha ilaaliso waa aqli xum waxaa meeshaas ka muuqanayso inayna dawladnimadu fahansaneen Afrikaanka fahma dawladnimadu waa is-ixtiraam waa diris wanaag waa isqadarin intaas fahma intaas ha iska yaacina arga adnoo soo dirsid muxuu iga qaadaya
waxaan rabaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hadduu ka gorgortamo sharcigiis baarlamaanka saxiixay ee asaga saxiixay baarlamaanka saxiixay hadduu ka gorgortamo impeachment-kiisa aan miiska soo saaraynaa asaan xilka qaadaynaa asaan xilka ka qaadaynaa haddii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ha ii dhegayso hadduu ka gorgortamo sharcigaas asagaan xilka ka qaadaynaa ha asaan xilka ka qaadaynaa walaalow waxaan rabnaa waa afuri doonaa maanta oo kale afur maba loo baahno waxaan rabnaa sharcigaas asagaa keliya baarlamaanka Soomaaliyeed oo fadhiista iyo shuruuc lagu duro oo dastuurka laga soo xigto ayuu ku buri karaa ama lagu gorgortami karaa annagana diyaar uma nihin inaan saacadan buug u baarbaarno waxaan jaheynay doorashadii halka qof iyo halka codeed muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa barna ha codeeyana ahayd barna ha iska joogaanay hadda Soomaaliya way simata qof kasto muwaadin ah wuu codeyna ninka taas diida ee Afrikaana ama beel caalama ama Yurub ha joogo ama America ha jooge ee aan aaminsaneen in doorasho hal qof iyo hal cod ay dhacdo dimuqraadiyadii ay sheeganayeen afka baarkeeda wadankooda un bay ku dhaqaayeen annaga ku dhaqayno aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh